magaalada Hargeysa goobaha lagu iibiyo jaadka waxa maanta ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen dadka qaadka cuno kadib markii uu qaaliyoobay amaba uu kor u kacay qiimaha lagu kala iibsado jaadku waxaana rabshado kooban kadib soo gaadhay ciidamada ammaanka kuwaas oo kala dareeriyay dadkii ka cabanayay jaadka ay ku qaaliyeeyeen ganacsatada qaadka dalka keena inta badan goobaha jaadka lagu iibiyo magaalada Hargeysa waxa maanta ilaalinayay ciidamada bilayska si aan loo boobin qaar kamid ah dadka qaadka cuna ayaa iiga waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan ee ku kalifay inay rabshadaha sameeyaan imika ruuxa jaadka waxaan jiray $5 maanta $10 jaadlaanta hadii si socoto magaaladu ka socomis dawladda madaxweynaha waxaan u sheegaynaa si dhaqsaan arrimaha u farageliyaan amar ugu soo tagnay qaadkii qaali nooga dhigan marka Hargeysa nimadna lacagtoona ugu kordhan hadda xamar baan ku noqonaynaa doo alla yiraahdo qaadka inaad cunti maxay ku galifay waxa ugu balwadeedu maanta kama shaqayn karaayo ma shaqayn karaayo haddaan qaad cunin xamar baan ugu imid qaad qaali ah haddaan Hargeysa qaali nooga dhigan waa inaan xamar ku noqdaa marka miiroogan cunaya doo alla yiraahdo dadka waxaan laga daayo ama laga joojiyo ama intii hore laga siiyo dawladdu jaadka waa sixir ka soo saarta oo muxashad sixir soo saarta oo waxa kala duwan Ilaahay lagu baarak oo madaxweynaha dawladdu wax ka qabtaa adu maanta ma qayish waxa ku qayla qaadka arka qaar kamid ah ganacsada qaadka ayaa sheegay in qaadku ka kacay dalka Ethiopia taasina ay keentay in qiimaha qaadku uu laba jibaar kor u kaco intii uu shalay ahaa sixiradiisi oo kor u kacay iyo qaadka oo laba waayba marka imsa siinaysan su'aalan waxaanu maanta siinaynaa imika 100 baan siinaynaa markii hore ay rabshadahaas yar bilaabmeen qolooyinka haraagoodu sheegay siirooga ayaa yareerka ciyalka tugtaba waxa soo sababay imika 100 baan siinaa markii horena 120 baan siinaynay imikan xasilooni xaaladdu ku soo noqotay in aan suxufi ku sii horto warka qaadkani waa qaadkii caasimadda iyo gobolada waa qaadkii qaadadka 725 baa la dhahaa sababto haya amis ma garatay waa qaadka qaadka waxa weeye waxaanu imika siinaynaa 400 oo kun inta 400 oo kun baa siinaa amba $40 saas weey intee ahaan jirtay markii hore waxay ahaan jirtay adigu $240 $4 bay ahaan jirtay 60 buu ahaa rubuc kilogiis $14 baa markaa maanta ku kordhay $14 baa ku kordhay cashuurtii dawladda markaa ay ku kordhisay baa in maya tani ma hadii cashuurtii dawladda waxa weeye kacdoomada ka dhacay Ethiopia in qaad bal la waayay wareeg dheer buu soo maraya qaadku waxa weeye dib badan baa loo soo mudanayaa Xasan Galayd telefishinka on cable Hargeysa